Assalaamu calaykum daawada. Daawada waxaa jirto digniin taas oo ah khatar xagga AIDS-ka. Waxaa la soo diray niman caddaan ah, waxaa la sheegay in ay u kala safreen wadamo badan oo Afrikaan ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Ninkan caddaanka ah wuxuu qabaa cudurka AIDS-ka, wuxuuna soo gaaray asaga iyo rag kaloo badan qaaradda Afrika, waxayna faafinayaan cudurka ay qabaan. Ninkan kaliya wuxuu qaatay gabdho badan oo Afrikaan ah oo ku dhow 100 gabdhood. Dhammaantooda waxay u kala safreen wadamo badan oo Afrika ah si ay isaga yareeyaan cudurka ay qabaan. Markasta oo qof qaadsiiso cudurkan wuu ka yaraanayaa, saa awgeed waxay soo aadeen Afrika. Waxaana ka mid ah wadamadaas ay imaanayaan Soomaaliya, waxayna ku imaanayaan wadooyin badan sida mashruuc caafimaad, caawinaanta dadka tabaaleysan, dalxiis, NGO iyo siminaaro iyo wixii la mid ah. Waxayna wataan lacago aan macquul ahayn oo ay dowladaha ka yimaadeen soo siiyaan si ay wadanka uga baxaan. Bil walbana waxa ay leeyihiin mushaar joogto ah si aysan wadamadooda dib ugu soo laaban. Haddii ay ku soo laabtaan waa xabsi, sidaa darteed waxay joogayaan Afrika inta ay ka dhimanayaan. Markasta oo ay qof qaadsiiyaan cudurka waxay sii joogayaan waqti dheeraad ah haddii santooda imaanin. Fadlan gabdhaha Soomaaliyeed oo ka digtoonaada ragga caddaanka ah ama madowga lacagta haysto. Haddii uu xiriir kala dhexeeyo nin caddaan ama madow, muslim iyo gaal wuxuu raba ha ahaado, aadna qorsheynaysaan guur, fadlan iska baara oo ka baara cudurka adoo u dhexaysiinayo bilooyin. Fariintan waxay idinkaga timid walaashiin oo la nool cudurka dilaaga ee arxanka daran. Waxaana gabdhaha Soomaalida u gudbinayaa fariintan inay gaarto. Fadlan nolosheeda way baaba'day ee walaasheediyay adduunyaha u baabi'in noloshaada. Anigu wax igu soo gambaday Islaam ayaan ahay. 5 bilood markuu i qabo ayuu wuxuu i dhahay Nigeria ayaan ganacsi u aadayaa, waana soo noqonayaa. Waxaan dhahay waan ku raaci maadaama baasaboor Kenyan aan haysto. Wuxuu i dhahay baby 2 week bis ayaan soo maqnaan, waan ku soo laaban Nairobi igu sug. Nasiib darro subaxii anoo jiif ayuu cod ii soo diray, kadibna warqado iyo daawooyin uu qaato ayuu ii soo raaciyay. Markaan arkay istaag ayaan ka dhacay. 2 saac ayaan suuxsanaa oo aan mir lahayn. Gabar Hindi ah ayaa isbitaalka ila carartay oo falad isla degnayn. Dhiiggii la iga qaaday ayaan lagu sii ogaaday. Markaas ayaan family iyo asxaab badan kala go'nay oo gabadhii Hindida ugu horeysay. Alxamdulillah waa wax ii qornaa. Lacag waan ka helay laakiin nolosheeda ayaan gacanteeda ku baabi'iyay. Walaasheeda Soomaaliyeeday, fadlan haddii aad guursanayso isbaara. Xataa wiil Soomaali hadduu yahay isbaara. Walaalkay adigna waxaan ka codsanayaa hadday gabar guursanayso labadiinaba isbaara. Waa iga talo.